السلام عليكم أصحابتي سلام كبعدي qiso diini ah oo gaaban oo na tusaysa wadada saxda ah. Waxaa jiray wiil dhalinyaro ah oo 16 jir ahaa. Wuxuu ahaa wiil ay waalidiintiis ku soo dadaaleen tarbiyadiisa. Wuxuu ahaa wiil diinta ku firfircoon oo na jeclaa mar walba inuu afkiisa iyo gacantiisa ay dadka nabad ka helaan. Dadka ma uusan dulmin jirin. Salaada waqtigeeda ayuu tukan jiray. Sadaqada wuu dhiiban jiray. Macsida wuu iska ilaalin jiray. Wuxuu ahaa nin naftiisa ka adag. Maalin maalmaha ka mid ah isagoo fadhiya masaajid oo akhrinaya quraanka kariimka wuxuuna sugayay salaada casr inta laga aqimaayo. Kadib waxaa loo istaagay salaadii. Wuxuu isku duubay oo isku laabay kitaabkii uu akhrinayay. Wuxuu istaagay salaada inuu tukado. Kadib wuu wareeray, wadnaha ayaana aad u garaacmay. Wuxuu ku dhacay dhulka. Waxaa ku soo kala orday dadkii masaajidka ku tukanayay. Waxaa loola orday isbitaalka. Markii dhakhtarkii loo geeyay ayaa la baaray. Dhakhtarkii wuxuu ogaaday inuu aad u xanuunsanayo, xaaladiisana ay aad u xun tahay. Kadib dhakhtarkii oo naxsan oona isdhaxaya ninkan badbaadi ayaa wiilkii wuxuu gacanta ka qabtay dhakhtarkii wuxuuna dhegta ugu sheegay. Dhakhtarkii wuu ooyay, wiilkiina wuu ashahaatay, wuu dhintay, Allah u naxariistee. Kadib dadkii waxay weydiiyeen dhakhtarkii muxuu kuu sheegay wiilka. Dhakhtarkii wuxuu yiri wiilka wuxuu igu dhahay waxba ha isdaalin, aniga booskii aan jannada ku lahaa hadda ayaan arkaa. Subxaanallah.